halkan waa garoonka kubadda cagta ee Shongole Stadium ee magaalada Jowhar. Galinkii hore ee maalinta waxaa lagu iibiyaa xoolaha, halka galinka dambe uu yahay goob lagu ciyaaro kubadda cagta. Garoonka waxaa la soo diristay xaalado kala duwan oo nadaafad darro ah oo waxa uu noqday mid qashinka xaafadaha ku dhow lagu soo qubo, iyada oo ay intaa u sii dheer tahay qashinka xoolaha lagu iibiyo ay ku reebaan. Dhalinyarada garoonkan ku ciyaarta kubadda cagta ayaa qaybtood ah dhalinyaradii matalaysay maamulka Hirshabelle isla markaana ka qayb qaadatay ciyaaraha maamul goboleedyada dalka. dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ee ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa waxa ay sheegeen in waxba aan laga qaban goobaha ciyaaraha lagu ciyaaro ee magaalada, isla markaana aynan jirin koobabkii kala duwanaa ee lagu ciyaari jiray magaalada. Sportiskii oo degmada waa dhintay, gobol iska dhaafbo degmadii oo maanta dadka ay ku noolaayeen oo markii ugu yar tahay 20 sano ka hor isbartiibadan bilacdeeda aad u fiicneed. Sportiska oo magaalada waxa gacanta ku hayay nin la dhahay Shongole. Sportiskana wuu shidnay, laakiin hadda waxay noqotay xabaale inay noqdaan. Waxa umaleynaysaa inuu sportiskii si dhintay marba hadii xabaale la keenay oo lo'dii la keenay, sportiskii magaalada bilacdiisa way dhimatay. Kadib markii la waayay goobo ay dhalinyaradu kubaddu ay ku ciyaaraan, qaybtood ayaa tahriibay oo gabi ahaanba magaaladii faaruujiyay ayay yiraahdeen. Dhaqaale ay nooca gobolka lagu kala qaataa midna nagu bixiyo oo maanta oo nagu daryeelo sidii maamulkii hore oo soo maray oo kala ma jirto. Marka dhibaatadaas anagu iskaga jirno aan iskaga kanacsaneyn, haddana waxaa timid midda tan ugu jeedin in suuqii oo xoolihii laga dhigo isbartiibadii oo bulshada ay lahayd ummadda ay lahayd. Ilmaha hadda sidaa ka warqabtiin dadkiina idaacadda gobolka u dhashay, ilmaha qaarkood dadkii hadda tartankii Hirshabelle dheeli ma joogaan Yemenay jiraan in ka warqabtiin dadkaan kala ka warqabaan dadkaan kala guryahooda ka warqabaan. Dhalinyarada ayaa dhaliil dusha kaga tuuray wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Marwa Khadiija Maxamed Diiriye. Waxa ayna tilmaameen in laga soo doortay Jowhar kana soo jeedo Jowhar isla markaana aysan ka warhayn xaaladda ciyaaraha iyo dhalinyarada. Waxaan ugu sheegay meesha wasaaradda sportiska dhalinyarada oo Hirshabelle ma jirto. Waxaa jirta wasaaradda waxbarashada oo hoos joogta wasaaradda sports laba isqaba karta ma marka ugu horeyso. Dhibaato ugu weyn wasaaradda sports oo dadka in leeyahay ma jirto. Maama Khadiija gurigeeda garoonka waxa u dhaxayso 100 talaak way ka warhaysaa, waxay tiraa ninka kaba ka tulnis kabiisa la fiiriya. Maama Khadiija meesha ka soo jeedasaan umad kale wax muqaabad doonto. Maalintii la doortay wasaaradda dawladda dhexe wasaaradda dhalinyarada sportiga waxa leen aragnaabo cunug xamar joogo oo la leeyahay dhalinyarada asaga waay kambanooniga dheelo xamar joogan la leeyahay. Maama Khadiija waxay ka soo jeedaa deegaankan gurigeeda ku yaalo inta lagu doortay. Sanadka dambe doorasho rabtaa, codkeygii rabtaa. Si ku aragto aad ka doontaa codkeyga sababtoo ah muddo hal sano ah gobolkan inay timid sport bahdiis inay la kulantay isbartiibadan maalintii burburka kadib ilaa hadda way ka warqabtaa. hadalka bahda isboortiga ee magaalada Jowhar ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada lagu wado in uu ka bilowdo koob lagu maamuusayo Allah u naxariiste gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Maxamed Cumar Xaweeb Maxamed Deere. Cabdifataax Ahmed Maclow, Cabdifataax Zaki, telefishinka caalamiga ee Bulsho, Jowhar.